ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska danab oo kaashanaya ciidanka deegaanka ayaa jab culus gaarsiiyay maleeshiyaadka khawaarijta kadib markii ay isku dayeen inay weerar ku soo qaadaan deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellada Dhexe. dagaal socday saacada ayay ciidamadu ku dileen tiro ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijta halka khasaare xooggan lagu gaarsiiyay cadowga iyagoona ka hortagay ujeedooyinkii guraacnaa ee ay soo abaabulayeen maleeshiyaadka argagixisada. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar kale muujinaya foojignaanta geesinimada leh iyo diyaargarowga buuxa ay ku difaacayaan shacabka deegaanada laga xoreeyay maleeshiyaadka argagixisada ee nafla caariga.